Mrs. Wall oo ka mid ahayd hablaha ugu caansan barta TikTok iyo sidoo kale Huda Amuun oo iyaduna ka mid ahayd hablaha ugu caansan baraha TikTok ayaa waxaa dhowrkii saac la soo dhaafay akoonkooda TikTok hawada ka maqan yahay. Hablahan ayaa waxay u dabaaldegaysaa mid qof walba isoo caawinaa mas'uul ciwaanka maxaa ka dhacay animka jawaab kara ciwaanka wuxuu dhacay because ciwaanka report-a lagu bixiyay waxa uu bixiyay dadka ku xun ciwaanka in oo halka milyan agaaro because dada rabin in agaaro kamida oo lagu magacaabo Mrs. Wall inay xaflad weyn ku dhigato magaalada Muqdisho iyadoo halkaas ay ku ballansanaadeen in dhalinyarada ugu caansan baraha TikTok ay qabiyahan ka soo qayb gali lahaayeen. Ku soo bir page-keena Facebook adigoo follow iyo like saariya si aan ku dhaafin muuqaalada xiisaha leh aan halkan ku baahino mahadsanid. Laakiin si nasiib darro waxa ka dhacday barta TikTok in 5 hablood ugu caansan baraha bulshada TikTok hawada lagu cunay, gaar ahaan hablaha ugu caansan ee ku soo bandhigi jiray barta TikTok dhaqan xumada iyo sidoo kale qoobka ciyaarka, taas oo jidhkooda ay isku soo bandhigi jireen iyagoo qaawan. Haddaba Huda Amuun iyo sidoo kale Mrs. Wall ayaa waxa akoonkooda hawada ku cunay rag lagu magacaabo in ay iyagu ka dambeeyeen sida sawirada wareegaya baraha bulshada gaar ahaan Facebook ayaa waxa la isla dhexmarayaa in mid ka mid ah injineerada lagu magacaabo Engineer Axmed Yuusuf uu ka mid yahay khubarada dhinaca security-ga iyo sidoo kale aaladaha social media in uu isagu ka dambeeyo falalkan lagula kacay hablaha TikTok isticmaala. Haddaba lama garan karo wali rajo cadna kama jirto in akoonka iyo sidoo kale baraha bulshada ee TikTok uu ku soo noqon doono gacanta mulkiilayaashii hore ee lahaa, sidoo kalena ay haayeen 2 gabdhood ugu caansan oo baraha bulshada. Tirahan hablaha ugu caansan marka la eego xagga dhinaca Soomaalida waa qaar ka mid ah hablaha haysta darajada 1 milyan. Qaarkood shalay ayay gaadheen laakiin nasiib darro umay suurtagelin in ay xaflad ballaaran dhigtaan si ay gacanta ama sacabadooda dhunkadaan. والله وكا دغني وقت ولقي ساقول لهم هذا والله يا عم ساقول لكم والله كابتن بيجي ينوم